maanta muuqaalkeena waxaan ku eegaynaa 10 mucjiso cilmiyeed uu quraanku leeyahay dhawaana cilmiga cusub ee ogaaday. quraanku sidiisa ayuu u yahay mid mucjis ah umana baahna cadeymo dheeri ah si loo xaqiiqsado inuu xagga alle ka yimaaday. sidaas oo ay tahayna waxaa maalin kasta lagu arkayaa cilmiga cusub ama baaritaano uu bini'aadamku sameeyay in uu quraanku horey u tilmaamay una sheegay. kusoo dhawaada channelkeena Koryaala waan idin kula wadaagi doono xogo ku saabsan xogaha caalamka sooyaal dhab ah oo aan dhan ka rarnayn aqoon ogaalkaaga kaabaysa. waxaa jira gal hawada sare ku yaala nagana celiya cadceedda siyaadada ah loona yaqaano khilaaful jawi ama ozone layer. waxa uuna ilaahay quraankiisa ku leeyahay suuratul anbiya aayadeeda 32. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون صدق الله العظيم. shinnida dhadiga ah ayaa shaqada malabka mas'uulka ah waxaana cadeynaya suuratul nahl آيات 68 iyo 69 waxauna eebba weyne leeyahay وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. waxa uuna ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayadihiisaas kula hadlayaa shinnida dhadiga ah isagoo adeegsanaya kelmadaha kuli wasluki wa budnaha taas oo baaritaanada qarniyada tan dambe lagu ogaaday in shinnida dhadiga ahi mas'uul ka tahay malabka samayntiisa. maqalka ayaa la hor abuuray inta aan aragga la abuurin. ilaahay waxa uu quraankiisa ku sheegayaa suuratul insaan إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. sidoo kalena suuratul mu'miniin waxa uu ilaahay ku leeyahay وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. tanina waxay cadeynaysaa in maqalka lagu hor abuuray aragga waana mid hadda uu xaqiiqsaday cilmiga cusub iyo aadanuhuba. duulitaanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu quraankiisa ku sheegay in aadanuhu maalin uun hawada sare u duuli doono. waxa uuna ku sheegay suuratul ankabut aayadiisa 22. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. sidoo kalena suuratul inshiqaaq waxa uu ilaahay ku yiri لتركبن طبقا عن طبق. taas oo cadeyn u ah in aadamuhu mar uun hawada sare u bixi doono waana mid dhacday maantay. waxaan lagu sheegay quraanka kariimka 1400 sano ka hor. mawjadaha codka waxaa baaritaano dhawaan lagu sameeyay hawada sare cadeeyeen in abuurkii dhulka marxaladihiisa kala duwanaa markii ugu horeysay uu soo daayay mawjado codad ah taas oo saaciday hawo dhulka ka buuxday intaan la abuurin dhulka ka hor. waana kan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku dhahayo suuratul fusilat aayadiisa 11. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. oo micnaheedu yahay in dhulka iyo cirku mawjadahaasba soo saareen yaraanshiyaha oksijiinka meelba meesha ay ka sarrayso. waxa uuna ilaahay quraankiisa ku dhahayaa فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. taas oo cadeynaysa in markasta waad kor u baxdo hawadu yaraanayso. sidoo kalena markii qofku diyaaradda koro ama buuraha sare u baxo uu oksijiinku yaraanayo waana mid ay hadda xaqiiqsadeen aadanuhu. lafaha ayaa ka hor samaysma murqaha. waxay baaritaano dhawaan ah lagu sameeyay ilmaha yarka iyo abuurkiisa sheegeen in lafaha ilmaha yari ay samaysmaan 41 beri ka bacdi 3 beri ka bacdina ay samaysmaan murquhu taasoo cadeynaysa in ilaahay 1400 sano ka hor quraankiisa ku yiri suuratul mu'miniin aayadda 14 laguna sheegay in lafaha bini'aadamku samaysmaan intaan murquhu samaysmin.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. qaybta hore ee maskaxda bani aadamka ayaa mas'uul ka ah beenta iyo go'aan qaadashada. muddo badan ayaa dadku aaminsanayeen in qaybta hore maskaxdu mas'uul ka tahay aragtida, balse waxaa hadda la ogaaday in qaybta hore maskaxdu mas'uul ka tahay go'aan qaadashada. waana halka uu qofku ka qaato go'aanka ah inuu been sheego iyo inuu run sheego. beentuna waxay ka mid tahay go'aan qaadashada. waxa uuna Ilaahay quraankiisa ku sheegay suuratul Alaq, ناصية كاذبة خاطئة. oo naasiyada loola jeedo xagga hore caddaynta dhulku inuu wareegsan yahay, sidoo kalena uu qoraxdu ku wareego. waxaa jiray aaminaad ay dadku aamineen muddo dheer in dhulku uu ballaaran yahay, qoraxduna aysan ku wareegin ama qoraxdu wareegto inta badan. waxaana arrinkan noo caddeeyey qur-aanka, sidoo kale inay qoraxdu ku wareegto. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. ugu dambayntii waxaan Ilaahay ka codsanaynaa inuu na waafajiyo khayrkiisa, sidoo kalena uu soo hanuuniyo inta aan hanuunsanayn.